السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان وزيرة حلبانة معمولياش اسكولة دمان مليانة كسو قيب كشمشان وكفر أحسن هاي ما أنت بنا كان إنا قيب كنخضه أو جارهان عن كهاد لوح أو بتكلم الكوريرسيين أو السوشيال ميديا أن سيابا بدن وحاجة تقبلها واستعمال السوشيال ميديا لكن ما أنت وحفوكس كسارين ستوري تيلينج يعود لهذا ستوري تيلينج قبلها سوشيال ميديا هجوجو دان sheekooyin ay hayaan nolol ay sameeyaan caqabado ay ka sheekeeyaan guulo ay sameeyaan all of that waxay ku soo gudbiyaan through stories waxa kamid ah aan tusaale ahaan u soo qaadan karnaa Nasrabti Doon oo ah hooyo ardayad jaamacad dhigata iyo influencer ay ku xiran yihiin 1 million sidoo kale waxa jirta gabar la dhahayo Queen Hawa she's a fashion icon influencer hooyo digital marketer and also حالدها content creator so gabdhahaas waxay sameeyaan waxay tahay maalin kasta caqabadaha ay la kulmaan noloshooda farxadaha dhibaatooyinka guulasha ay gaaraan all of that through social ku soo gudbiyaan taas waxay suurtagelinay gabdho badan oo noloshooda problemyada gabdhahaas haysta amal haysta inay jaanis u helaan gabadhaas haday sameyn karto aykan ay sameyn karaan haddii hooyo tahay ee wax baranayso inay aykan hooyo noqon karaan waxna baran karaan so all of that haddana ayaamaha waxa soo badatay ma sha Allah eventyaal ee gabdho qabtaan kulamo taas ay ku soo bandhigayaan aqoon isweydaarsi culture farshaxan everything so taas maxay cadeynaysaa inaan nabad helnay before that waxas ma arki jirin because qof kasta wuxuu ku mashquulsanaan jiray so u survive gareeyo so noloshiisa uga fikiro but markay nabad imaata maxay imaanayo in hal abuur la sameeyo hor u socod la noqdo soo waxa soo dhan waxay awood u tahay nabadda marka nabad helno maskaxdeena way shaqeynay waxyaabo badan ka fikirayna a lot of things are create gareena so I hope inay gabdho badan oo koonfur galbeed ah inay soo baxaan social life ku soo biiraan stories sameeyaan koonfur galbeed quruxdeeda noo soo bandhigaan insha Allah arjeynayna in conclusion gabdhaha way haysteen representation oo social life but laakiin waxa u baahanahay dhiirigelin badan si aan u helno gabdho badan oo sidaas amal loo dhiirigeliyo thank you